Soomaaliya waxaa muuqata in hadda ay si weyn doorashada golaha shacabka uga socoto maamul goboleedyada marka laga reebo Hirshabeelle inta kale waxaa lagu doortay xildhibaano ilaa iyo gaaraya 80 balse waxa uu walaaca ka taagan yahay qoondadii haweenka loogu talagalay ee baarlamaanka ilaa iyo iminka 15 dumar ah ayaa la doortay iyadoo golaha shacabkana uu ka kooban yahay 275 ayna ku leeyihiin gabdhaha 30%. dhanka aqalka sare waxa ay dumarku ku helayaan 14 oo kamid ah 45 waa 54 uu ka kooban yahay taas oo ka dhigan ilaa iyo 6%. sida ay haweenku sheegeen waxaa jira kuraas ay dumarka ku fadhiyaan oo rag loo doortay maanta oo ay ugu dambeysay waxaa ku soo biiray baarlamaanka 11aad laba haween ah oo kamid ay tahay Fawziya Cigaal sida markay ay sheegtay ay guuleysatana sidan ay tiri aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan gabadha koobaad noqdo oo kursiga ku guuleysatay maantay waana u mahadcelinayaa cid walba oo ka shaqeysay arintaas qaasatan ergada maanta halkan igu dooratay gudiga doorashooyinka oo shaqada qabtay runtii aad baan ugu mahadcelinayaa dhamaantood way mahadsan yihiin aad baan ugu faraxsanahay inaan kursiga koobaad oo gabar noqdo haddaba si aan wax badan uga ogaano aqoondada haweenka iyo walaaca ay qabaan waxaa Muqdisho qadka toos ugu jirta Hooda Yuusuf Xaashi oo ah xogayaha gudiga xaqiijinta aqoondada haweenka hooda soo dhawow waad dhageysatay horadhici warbixinteena marka ma jiraan kuraas ay haweenku lahaayeen oo ay waayeen oo laga qaato oo rag ay qaateen waa mahadsantahay Cusmaan iyo dhammaan bahda BBC Somali Television waa jiraan walaac aan ka qabno oo ah in kuraas haween aan u qoondeynay ay isla hadda ku soo baxeen sida hore u soo sheegtay 75 kursi ayaa golaha hoose ama golaha shacabka loo doortay qoonda ahaan sidii anaga aan gudi ahaan u qoondeynay waxay ahayd inay ku soo baxaan 25 haween ah 75 ka kursi qaladada meesha ay ka jiraan oo haweenka laga duudsiyo amba kuraastooda aan la siin waxa kamid ah qabiilo lahaa 4 kursi oo afartoodii kursiba ay gudbeen oo ay ku jiraan tiradan 75 ka ah oo ay ku soo baxeen qoonda la'aan iyo sidoo kale qabiilo haysteen 3 kursi oo aan ilaalin qoondada haweenka marka halkaas ay ka cadahay in haween kuraas ay lahaayeen lagu fariisiyay rag واتهاي مركا هذا محد سمعينيسان مادام عاد صار شكتي كراسة ودي قدبين وحلبان الله دورتي قبلين أي سنين ما حلك يا هذا إن حلك وحنا قنايا أنا جودي أهان وحن سمعني كلاب ما بين إن عن كلام ما بكي عن سمعني عن الراعين إن كلية حلك أنا هاي واحد سهي إن أنا هذا إن عن كشقين سيدي كلام ما بكاس لو راعي لها أو وليبا معمول قبلات كسته عن وقنديني كراس جار إني هواك لو قندي يقبل كستبا كرسي جولها وحكيلي وحلها إن الدلالة النسي وضنو أنا نيت شبنين سيد أنا حقيقة لهين إني هواك وصو جلام بقول كي بصدم برلمان كسوماليا واتهاي هذا واحد شكتي إن الدجسين نقشد وحق قبيلة أدل كل ميسان مركا odayaashaas qabiilada iyo wax ma jiraan aad doonaysaan inaad la kulantaan ama see u la xiriireysaan ilaa arintii qabiil haday tahay odayaal ay hoos joogtaa waa jirtaa gudideenu sidii loo magacaabay waxay wadaan sidii ay uga qareemi lahaayeen haweenka waxaanu la kulanay oo aan goob kasta ugu tagnay oday dhaqameedyada soo xulaaya kuraasta qabiilaadka sidoo kale bulshada rayidka sidoo kale wasaaradaha haweenka oo ayagana qayb ka ah inay ka shaqeeyaan sidii loo xaqiijin lahaa qoondada haweenka iyo sidoo kale madaxweynayaasha maamul goboleedada oo ayaguna go'aan weyn amba muhiim ah kule sidii ay kuraastaasi u soo bixi lahaayeen anaga dadaaladeena waan wadnaa dadaaladeena oo gudi ahaan la taaban kara waxa kamid ah inaanu aqalkii sare soo xaqiijinay inkastoo 30% la gaarin 16% oo tirada guud ee aqalka sare ku soo baxday haween ay yihiin 14 oo sanadkii 2016 ay haayeen 13 dadaal dheer oo aan sameynay oo maamulka Jubaland oo hal xubin ku lahaa golaha aqalka sare baarlamaankii hore ee 2016 la doortay ay hadda hal xubin ku soo dareen doorashadan dadban aqalkii sare marka anagu mar walba dadaaladeena iyo la kulanka arrimaha bulshada si aan u xaqiijino qoondadeeni ma ka daalayno
oday iyo cid walo ay ka go'do in ay kuraasta aan isleenahay go'aan ay ku leeyihiin amba saameyn ay ku yeelanayaan waa la fadhiisanaynaa. waa tahay hodan ugu dambeyn adoo soo koobaya intaan la dooran musharaxiinta marka hore ma ka hor tagtaan inaysan wada rag noqon? anaga guddi ahaan waa ku dadaalay in intaanba aan la keenin soo dajiska amba meesha ugu horeysa in la sii xaqiijiyo aan sii ogaano kuraasta ay haweenku ku soo baxayaan. weli waa ka xumaay ma noo suurtagelin guddi ahaan kuraasta ay haweenku ku soo baxayaan weli nooma cadda walaacan qabna aan muujinaynana waa kaas welina waa ku daba joognaa sidaan u heli lahayn intaanay doorashada xawliga ku socotaay ay socoto inaan sii ogaano kuraasta ee haweenka loo qoondeeyay. waad mahadsan tahay Hoodo Xaashi oo qadka Muqdisho nooga soo birtay.